waxaan maanta sidee dadkii ugu horeeyay sheegeen xildhibaanadii ugu horeeyay maanta waa maalin weyn oo maanta maalin taariikhi maanta waxay jiri doontaa taariikhda xildhibaankii ogolaado inay magaaladan tahay magaalada Soomaaliyeed leedahay dad gaar ah degan yihiin in la iska wada arkayo sax tahay u codeeyo in dadka shacabka 3 milyan ee Soomaaliyeed ku kooban inay helaan xuquuqdooda u codeeyaan waa in la arkaa kan diidanna waa in la arkaa shacabka Muqdisho ay arkaan shacabka magaalada ku nool waa in la arkaa aniga waqtiga ana iskale ما صدق هذا المدرب ما صدق وحال يشرك ويا مدرب المدرب ما صدق أنا وحال شيء وفكر شيء وأنا حقيقي شعب كما يعلم مشاق وهذا ذاتك أم مثلا وهذا وحي قبانا نقوالنا أم بالله نحن معه أم بالله فرحة وعن كذا وأنتس ما مو ناس ليسمه وهذا احترام هذا احترام انت كذب وعوصل نقرا مدرات قبل كبنادر مدرات قبل كبنادر ومد متقنا حق ليه ددك magaalada Muqdisho degan tirada la rabo waxay tahay in laga badiyo muddo tirada waxa u baahanahay in 14 laga dhigo oo mataqana ugu yaraan waxa lagu sareey doonaa bulshada degan magaalada Muqdisho tiradooda inta ay laagta waxa kale oo sakan gareena xildhibaanada Soomaaliya xildhibaanada iga horeeyay inaysan u baahnayn in dastuurka loo furo saacada madalaadaasna shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa baarlamaanka golaha shacabku matala in maqaamkan gobolka Banaadir amba matalaadan gobolka Banaadir aqalka sare inay noqoto mid la wada ansixiyo aan loo kala kicin ilaa caawa lagu qaadato hadii la rabo laga doodo go'aanna laga gaaro taas ma taqaana waa mid aan soo jeedinayo aan ma taqaana codkayga aan ku beerinayo hadii hadalkayga si qalad loo fahmay waxaan ka bixinayaa laakiin aniga waxaan ku taaganahay shacabka Soomaaliyeed waana sugayaan shacabka gobolka Banaadir waana sugayaan mana aqbali mayno doorashada dalkan kale inay ka dhacdana aqbali mayno ayadoona xaq gobolka Banaadir leeyahay